الرحمن الرحيم waxaan salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed anigoo ah gudoomiyaha Shidan Faarax laga gargaran yahay halka waxaan ku qabanaynaa degmada la Asqoraya shirka oo daaran gobol Sanaag arrimo ka jira hore dhowr jeer u taabanay waxa weeyaan gobolka Sanaag barnaamijyo badan oo isku dayso maamulka SNM iyo hay'ado ka howlgala ayaan rabnaa inaan ka hadalno anagu odayaashii deegaanka waxa weeyaan madaxa hay'adda bisha cas Axmed Kulli bisha cas hay'adda waxaan u arkaynay in waxtarka deegaanka taakulada deegaanka hay'adaas u keentay ma ay noqon hay'ad u joogta barnaamijka iyo waxtar bulsho waxay noqotay hay'ad fidmada ka shaqeysa dadka gobol Sanaag dagaalada ka socda qayb weyn ka qaadatay iyadoo aan ognahay Axmed Kulli inuu hore u geeyay Shidan waxaan kaloo haynaa anagu deegaan ahaan waanu ka baxnay maamulka SNM xildhibaanada inaga jiray hore lagu baalkeen jiray talaanu ka gaadhnay markaanu aragnay beesha SNM dagaalka iyo dhuldoonka dhulboobka aadiga ah gudi ahaan Sanaag waanu kansalay waxa weeyaan ninkaasi hay'adii bulshada loogu talagalay danteeda iyo duruufaha ka jira wuxuu adeegsaday qaab siyaasadeed iyo qaab qabiil waxa kaloo ognahay in uu maayarka gobolka ka soo baxay oo 3 sano aadiga ku joogay Ismaaciil Xaaji Nuur uu ku kaambeyngareeyay xoolihii bulshada tabaalaysan loogu talagalay iyadoo cadeymaheedana aan meel dheer ka doonayn wiilkiisii uu dhalay uu soo bandhigay barnaamijkeedana waad ka dhaahanaysaan warbaahinta waan soo dhiganaa iyadoo markaanti cada wiilkiisii Axmed Kulli Maxamed Kulli ayaa soo bandhigay waxa weeyaan حق بعدي إن برنامج كشجعين وحويان ما يركك تشوجانا إنه دل يحق دراسة سنة هروج تشوجي حتى أنا برنامج كي ها تانا وحق درني بمين يرجع وحنا كل حساب تمنا برح لين النقطة لبدا مود تانت عيل فين مكس حكمان به كلا أيانو حق لنا ولا هي وحويان مدح بشعس أحمد كل تولد الحياة الصومالية فدرالك باش عالمك يهايد بشعس waxaan u sheegaynaa Axmed Kulli hantida loogu talagalay bulshada iyo dadka tabaalaysan gobolka Sanaag inuu adeegsaday dagaal qabiil dagaal beeleed iyo siyaasado gobolka ka socda iyadoo hantidii ugu badneyd uu ku bixiyay musuqmaasuq hantidii dadweynaha lumiyay musuqmaasuq ina Xaaji Nuur uu ku soo saaray wiilkiisii uu dhalayna oo cadeynayo ka maqnaanti ka cayo cadeynteedana aad halka ka daawanaysaan waxa weeyaan golaha guurtida Soomaaliland كلها قلت لي سومالنا SNM هذا الكودي نوال بواد هذا عالم كاتشوج إسلام وحي عدك الصومالي لغة الصومالية كلها الله ويدقيستين كلها قلت له حي نمكي نبدين تقبل ك رواد كودا أنت منشور كهذا الله وأنا مكي بجد السنين يمر كلا بدل يي ما عنده وده حكاها اللين يجنا هورنا ونصو بدقني إن أي ديجان كحد ما ندي ورسجلي مركي لواي لقعدوا واي قبل سنة deegaanka dadkii lahaa way naga tageen deegaankiina raac saas ku tagay shaqada saas ku tagtay waxaan leeyahay xaq labada goomood ee la sheegayna ee waa dhulkan cid uun baa leh hadaa laba qof oo isqabtay mid uun baa gardaran hadaa qabaayil sayo dhul isku haya qol uun baa damaaci gadajista taana in ruuta loo kala sheego waa muhiim oo ayaa tala leh labada meelood ee aad sheegaysaan ee Shidan iyo Dhabardarool waxaan ka warhayaa labada inaan midna doorashadii ka dhicin ammaankeeduna meel aan doorasho ka dhicin ma wacna marka waxaan oran lahaa hay'adaha gacanta ku haya caafimaadka iyo arrimaha gudaha baan u yeedhano aan wax weydiino iyada Shidan iyo Dhabardarool waa arrimo taagan oo in badan taagnaa hasii kala cuslaadeen ama hawshu ku kala yaraatee waxaan moodaa xoogga in la saaro arrinta Dhabardarool waana muhiim in xoogga la saaro meel kasta oo nabad markaa wax laga qabanayo in xoogga la saaro laakiin taasharka Shidan wali waa sidiisii waxaan ogeyn gudiyo loo saaray in guurti tagtay in ay wax socon waayeen in isna beelaha dhexdooda gaar la qabtay isna socon weeyda wali waa sideedii waxa la isku hayaana ma aha macdan ee waa dhul lahaanshaha dhulka weey lahaanshaha dhulka la isku haysta macdanta waa laga heshiiyaa oo
qof walba 300 baa laga nin walba saacadiisu galaa wuxuu ka helo la tagaa taa la isku ma haysto laakiin waxa la isku haystaa dhulka damac lahaanshaha dhulka la isku haystaa dadkuna waxay isku dilaan waa lahaanshaha dhulka waxay sugayaan cid runta u kala sheegi lahayd oo lahayd kala dhex gali lahayd dadka in badan bay isor fadhiyaan meel qoriga la isu sitoona ma degana meeshan jiitamaysa la leeyahay shidan horta maxaa ka shidma taasaa la yaab leh waxa weeye dadkii meesha lahaa ee waddankaa lahaa dee tagba maanta waa tegay oo maxaanu ka doonaynaaba taga ay nagaba goosto waxay dawladuna way nacday innana waynu nacnay marka waxaynu kaga daba tagnaba garanba maayo anigu maanta haddii se la taataabto dagaal xun baa ka dhacaya war hawshaa haddaynu taataabanay horena rag baa ay noogu diray raggii ceerigaabo way dhaafi kari waayeen ceerigaabo way dhaafi kari waayeen taasna waxay ahayd maalintii ay meesha tageen halkaa golaha way ku yar ceebeeyeen nimankaa meesha tegey inay markiiba meesha tagaan oo gudbaan bay ahayd dee innana maynaan xoojin dawladduna ma xoojin waxa loo baahan yahay meesha tan ciidan raggaa raaca taana waa la isku hortaagay oo waynu ognahay markaa meesha tan rag baa ku dhintay welina ma dhowa hawsheeda dee dawladda haddeer anigu waan la yaabanahay waayo arrimaha guduhu wuxuu arrintaa u haysto oo u fudaysanayo anigu waan la yaabanahay dee markaa waxaan qabaa dee sidaas maantana doorashadii ay uga hadheen in meeshaasi nimankaasi iskaba tageen oo meeshaasina iska tagtay horey ahayd xaqa inay uga hadlaan afkooda wax maanta ka soo yeedhiya garan maayo oo dhahaan shidan waxa iskale hursan geli markay maraatada wadeen oo dadka isku leynayeen oo dhiig inta ka badan aanu quban haddana waxaanu leenahay deegaan aanu iska leenahay weeye cid aan u daba fadhiisanayna ma jirto gobolkana beesha cid aanu dacwona waxa weeyaan maamulka dawladda dhexe ee dalka ka jirta iyo hay-addii iska lahayd mashruuca kan bisha cas maamulka puntland waxaan u soo bandhiganayaa beesha caalamka in hay-addaasi musuqmaasuq dagaalka hore ugu jirtaan uga hadalay haddana caddaynteeda oo dhaba aa ka daawanaysaan waraaqihii aan idiin soo bandhigayno oo aad isla hadalkan gudihiisa ka daawanaysaan waraaqaha iyagu isku fashilayaan xaqa xaaraan bay la tahay baa la isku kuriyey waxa weeyaan marka gobolka sanaag hawsha intaa leeg baa ka socota cod dheer iyo cod gaabanba arrinkaygu intaas ayuu belaya odayaasha ayaa iga dambaynaya anigu waxaan salaamayaa ummadda islaamka meel kastoo joogto waxaan ka hadlayaa arrimo ka jira daanta galbeedka anigoo jooga degmada laasquray gobol sanaag gaar ahaan degmada laasquray arrimahaas oo laba ah mid waa dhacdooyinkii shidan ka dhacay oo laysla ogaa kuwii oo isa soo taraya dhibaatadii dhulka lagu hayay iyo waxyeeladii iyo nadaamadii ay SNM kaga tashatay ciidamadeeda iyo shacabkeeduba midna waxa weeye hay'adda bishaas hay-adda bishaas waa hay-ad samafal ah oo ku magacaaban yaqiin ahaanna kaga soo baxda meelihii ay ka diiwaan gashan tahay iyo mulkiga ay sido ay ku magacaaban yihiin bulshada tabaalaysan oo dadweynaha in la siiyo gobol sanaagna aanay kala lahayn taa waxaanu caddaynteedii haynaa inaanay hay-addaasu sidii xoolahan loo idmaday oo mashruuca kan loogu talagalay inaanay u fulin in dad gaari u tashadeen inay kullu iyo ciidamadiisu ay u tashadeen in laga soo in dhashiikayaa laga gaday in shidan laga maalgeliyo hub la soo iibiyey oo wixii la doonayaa samafalka in loo bixiyo oo dadka masaakiinta la siiyo mid la isku diro oo dhiig ku daato halkaa laga soo gatay waxaa intaa wehelisaa shaqadeeduna ay ku caddaatay shaqa dangaara lagaga shaqaysanayo iyada hay-addaas intaasaan ka idhi waxaan caalamka u sheegaynaa ummadda islaameed iyo ummadda caalamka meel kastoo la joogo hay-adda bisha cas la yidhaahdo gobol sanaag waxa ay ku joogtaa waa been iyo fidmo iyo isku dir iyada caddaynteedana waanu haynaa si diyaara naloo ka heliyaa haddaan taa ka gudbo oo u gudbo dhacdooyinkii shidan ka dhacay iyo shidan cidda mulkigeeda iska leh shidan meel muran ku jirta maaha laakiin waa meel musuq maasuq iyo xoog lagaga tashaday oo ciidamada SNM iyo shacabkoodu ay gurmad ahaan isugu yimaadeen waxaanu caddaynaynaa intay sharaf darro ka qabto Soomaaliland ama ciidamada SNM dad shacab oo dirisa oo walaalo ilaahay oo islaayay halkii heshiis iyo cadaalad iyo dhaxgal ka geli lahayd
inay ciidamadii soo dariirseen dhibaato weyn halkaa ka geysteen caalamkuna waa ogyahay ilaahayna waa ognahay waa ognahay waxaana nooga ballanaa ragga maanta leh shidan baanu hadalka ogol lahay shidan ummad ballaaran baa leh shidan waa dal warsangid gaar ahaan beel gaaraa degta ummad gaaraa iskale ummaddaas waa ummad badan 10 nin iyo 15 nin iyo 100 nin kama talin karto waa ka mamnuuc yaa beel laysu sheegay nimanka shidan ka wada hadlayo iidoor annagu shidan kala hadli mayno 20 nin baan kaga dilay dalkayagii baa lagu soo duulay mulkigayagii baa lagu dhacay hadda wali xoog nala ku dul joogaa SNM way ka midaysan tahay keema ogolin nabad keema ogolin tawriicadii si hadii la akhriyo haddaan axad ka qarin nabad keema ogolin keema ogolin yaa beel isu sheegin ragga hargeysa jeefjeefa oo lacagta ka qaadanaya adeer inta warsan gali maaha iidoorow yaa beel leedii sheegin wixii aanu ku balanay isleeyahay shirkan jaraa'id maanta 25 bisha 6 maalin jimcaha waxaanu halkaanu ka soo jeedinayaa hawlo baryahan ka dhacaya gobolka Sanaag gaar ahaan magaalada la yiraahdo Ceerigaabo ku wajahan ninka la yiraahdo kullu sida ay uga soo hadleen odayaashii hore ninkaas oo u adeegsaday arrimihii bulshada iyo nidaamkii iyo wixii waxtarkii gobolka Sanaag bari ilaa galbeed looga dhigay hoggaan looga dhigay maamulkii ugu sareeyay inuu u adeegsado sifa khaldan oo sida ay odayaashu uga warameen ah in hub la siisto lacagtii hay'adda in dad gaar lagu kaambeyn garayo lagu soo saaro gobolka Sanaag haddii aanu nahay Sanaag gobolka Sanaag waxaanu cambaarayn xoog u soo jeedinaynaa hay'adda bisha cas meel kasta oo laga maamulo maamulkeedu joogo ninkaa in cabashooyin ilaa sanadana waa ka wadnay haddeerna ay maalin walba ka sii darayso ninka Axmed kulli inay horta la xisaabtamaan madaxa hay'adda bisha cas ugu sareeya Soomaaliya haddii ay qaybta Muqdisho tahay iyo hadday ka shisheysaba waxaan u sheegaynaa inuu ninkaasu eedeysanay gacan ku dhiglaayahay una shaqeeyo Ismaaciil Xaaji Nuur kuna kaambeyn gareeyay lacag ilaa 200,000 oo dollar ah oo kaambeenka musuqmaasuqa ah oo Sanaag oo dhan lagu riday tartamayaashii baanu halkaa uga cadaynaynaa inay lacagta uu ku faanay oo wiilkiisu waliba Facebook dhigay inay ku kaambeyn gareeyeen warqadiina ay qorantoo tahay beendoodna anagu ma yihiin intaa waxa ii raaca deegaanka la yado shidan warsangeli baa iska leh inta oo qarni ilaa iyo taariikhdii Maxamed Cali Shire ilaa taariikhda 2021 ah waa la garanayaa nin walba buug dalku iska leeyahay waa la iska indha tuuray xitaa halka waxa lagu qabtay macdanta maltooradii siidi jiray oo loo wado la rabo in laga dhaadhiciyo halka oo xagga la mariyo oo rag warsangeli loo adeegsaday waxa weeye ama warsangeli adeegsada ama cid kale adeegsada shidan warsangeli baa iska leh nin jeedal dheera ahina haddii la kama tarin karo shidan haddii loo gurmaday ceel cadde dabardalool waxaan maamulka Soomaaliland ku eedaynaya haddii dabardalool loo gurmaday oo beelaha isku laayay ceel halkaas oo dabardalool la yado loo gurmaday tan looma gurman haddii ceel afweynteedii la damiyay tan lama damin halkaa waxaanu Soomaaliland aad ka aragtaan inay isku dhan yihiin maamulka Soomaaliland ka midaysan yahay macdanta sheerna lagala soo galay imaaraadka Muuse Biixi iyo xulufadiisu ilaa iyo imaaraadka arrinka sheer lagula soo galay maraakiibtii qaadaysa macdanta la keenay warshadihii la keenay ajaanibkii ka shaqayn lahaa la keenay macdaadkii la keenay wax walba halkaasaanu idinka jeednaa muddo dheer anigu kama hadlin meediyaha laakiin waxaan odayaalow idiin sheegayaa mid dhow iyo mid dheer ama Muuse Biixi sheer la soo galo imaaraadka kula soo heshiiyo ama Soomaali kale ha kula heshiisay taa inta wiil hal naaskeed gaara naga nool yahay inaan nabadi aanay ka dhalan si degan wax looga guran ama markabkeena ama qumbuladkeena dalka nin leba iska leh dalkana 2 jeer lama abuurin dadkana 2 jeer lama abuurin
wixii halkaa ay axmed wado axmed kullu iyo xisbigiisa iyo ina xaaji nuur iyo dhammaan ragga halkaa joogo dabaqoodhiga oo qaybtood u shaqayso ilaa hargeysa yaacsan yihiin annaga nama matelaan waxaa weeye hadalka oo kooban waxaan kaga guurayaa xabaal iyo ninkeed loo kala teg annaga ilaahay baa iskaayo baday habar yoonis ama garxejis iyo reerka la yidhaahdo garab sare ilaahay baa isbaday marka warsangeli laga yimaado nin walbina waa waxay habartay u dhashaa hadalka waxaan kaga guurayaa ummadda soomaaliyeed meel kastoo aad joogtaan markhaanti waxaad ka ahaataan fidmada ay wadaan gobolka sanaag laga wado ilaa hadday bidho saabka gobolka tahay ninkaa gadabiirsay oo hore aan uga hadlay gadabiirsay haddii laleeyahay habeen walba laaluushka loo geynayo iyo hadday maayir tahayba waa wax laga midaysan yahay annagu waa isdifaacaynaa assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu